sida tan. Assalaamu calaykum, waxaan ahay wiil Soomaaliyeed kana soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland, gaar ahaan gobolka Boorama. Waxaan ku dhashay wadanka Imaaraadka anigoo wax yar jira ayaa aabahay naga tagay. Hooyaday ayaa isoo korsatay aniga iyo gabadh iga yar. Waxaan waxbarashadii ka bilaabay isla Imaaraadka. Markaan heer jaamacadeed gaaray ayuu aabahay ila soo xiriiray, iyana ballan qaaday inuu garab galayo, igana caawinayo wax walba aan uga baahdo. Aniga iyo gabadhii iga yareed wuxuu noo kaxeeyay dalka Mareykanka oo uu isagu ku noolaa muddo 20 sano ah. Isagu wuxuu ka shaqeeyaa Mareykanka. Markaanu joognay muddo kooban oo aan ka badnayn 2 sano ayuu haddana naga tagay aabo. Isagoo dalka Mareykanka ku nool ayuu haddana naga xidhay meel walba oo aan kala xiriiri karno. Nasiib darro, gabadhii iga yareed waxay qaadatay dhaqankii gaalada, waxayna la yeelatay asxaab Amerikaan ah. Aniguna waxaan isku dayay inaan ku soo laabanno Imaaraadka oo hooyo ku nooleed, laakiin way iga diiday. Kadib sidaas bay ugu nooshahay New York. Hooyaday waan booqan jiray. Booqashadii aan 2008 booqday waxay noqotay tii ugu dambeysay. Hal ficil oo aan maalin sameeyay anigoon ogeyn ayaa waxay noqotay rag cadaan ah oo aan jaar ahayn gobolka Minnesota muddo 2 sano ah ayaa waxay soo xadeen kaar nooca bangiyada lacagta lagala baxo ah. Waxayna iigu bedeleen kaar aan anigu lahaa. Kadibna kaarkayga ayay qaateen, anigoo eegin oo hubsan kaarka aan rabo in aan lacagta la iga soo saaro ayaa markiiba la igu yiri kaarkani waa la soo xaday, adiga ayaana soo xaday. Kadibna waa la xiray. Cid xagga familiga ka socota oo ay garab istaagtay maxkamadda markii la isoo taagay ma jirin. Aabahayna waan u sheegay waxa jira, laakiin nasiib darro adiga ay halka isdhigay ayuu iigu jawaabay. Maalintii la xiray oo ay ka soo wareegatay 9 sano ilaa maanta waxaan ku jiraa jeel madow. Taas waxa iga sii daran bil ka hor ayaa la ii sheegay in hooyaday geeriyootay. Ma qabo rajo aan kaga soo bixi doono xabsiga, mana qabo rajo aan ahayn midda Ilaahay aan ka qabo. Ma lihi cid caawisa oo Ilaahay ahayn, mana lihi aabba i garab istaaga, mana lihi hooyo maanta ii nool oo aan oran karo gacan bay ku siin kartaa. Gabadhii kaliya oo ila dhalatayna waxay raacday gaalada. Ilaahay ha soo hadeeyo. Aabahay wuxuu haystaa lacagta ugu badan oo ay haystaan qof Soomaali ah oo ku nool Amerika. Wuxuuna u shaqeeyaa dawladda, wuxuuna la socdaa oo saaxiib la yahay dumarka cadaanka ah. Walaalayaal, haddaad rajo qabto oo aad maalin ku haminayso in aad darajo ka gaadho nolosha, anigu maanta rajadeeda ugu weyn waa inuu Ilaahay iga saaro jeelka uuna ii soo celiyo xorriyadeydii aan haystay 9 sano ka hor. Walaal, haddii aad leedahay diir damqanaya inuu igu naxariisto islaamnimo, Soomaalinimo, walaalnimo, walaal Ilaahay dartiis si niyad ah sujuuda iigu soo duceeya.